iyadoo uu maanta u lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani ololaha doorashooyinka ayaa waxa uu ku bedelay deeqo uu gaarsiinayo dadka danyarta iyo isbitaalada waxa maanta kamid ahaa meelihii uu deeqaha gaarsiiyay isbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama iyo qaybta tiimbida ee isbitaalkaasi iyadoo uu gaarsiiyay xoolo nool iyo raashin isla markaana uu ugu talagalay in loo kariyo isla markaana loo qalo arigaasi dadka xanuunsanaya ee jiifa isbitaalka waxa halkaasi deeqda ka gudoomay qaar kamid ah mas'uuliyiinta isbitaalka sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yiraahdeen marka maanta waxaan u bedelanay isu soo baxyadii aan u soo bixi jirnay barxadaha sida khayriyada oo kale waxaan u bedelanay inaan doornada la qaybsano waxaanu ka nimay halkii hore waxaanu mimkana joognaa isbitaalkii weynaa waxa kale maanta ay sharafi ah anigoo gudoomiye kaambeynka gobolka ah halkan waxaan keenay raashinkii macaawinada ahaa ee xisbiga wadani ugu talagalay dadka nugul hore waxaan u soo geynay dadka la nool fayraska HIV hadda waxaan taaganahay custalka TB ana leena TB hospital Boorama deeqdan kooban iyo intan xoolihii waa qada maalineed oo xisbiga wadani uu ka soo jaray wixii maanta ololaha ku gali lahaa waan idin la damqanaynaa Allah idin caafiyo ilaahay wuxuu isku naxariisto waan idin naxariisanaya runtii aad iyo aad baan u rajaynayaa isbitaalka Boorama inuu noqdo maalmaha kamid ah sidoo uu bari ahaan jiray isbitaalka culays waxaan ahayn kumay soo kordhin waan arkaysaan calankii wadani raashinka oo hoos yaale macaawinada ah ee la dhigay wad arkaysaan ee lagu caawiyay intaas horta tusaalaydu ku filan tusaale waxa idinku filan goob kasto dawladeedo sawirkoogaasi sulan yahay dadka hoos joogay way dayacan yihiin innagana ilaahay yahay nooga gargaaro xanuunadaasi oo caafimaadkeena ilaahay noogu sii wado way idinka arkaya waxa isku jiraan labada xisbi marka taas isku jiraan lagaga daweyn jiray in muxuu ahaa xanuunka TB-da laakiin nasiib darro wadinka maanta arkaya wax daryeel ah iyo wax dawaa oo ay helaan ma jirto labadii hay-adood ee caawin jireen way ka tageen sida uu sheegay gudoomiyuhu anagu waxaanu ballan qaadaynaa haddii talada dalkaanu la wareegno in isbitaalkani uu sidiisii u shaqeeyo dhakhaatiirtii soo noqoto aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa urur weynaha ama xisbiga wadani oo maanta soo gaarsiiyay qaybta dhimirka raashin ka kooban bariis iyo sonkor iyo xoolo inta uu soo gaarsiiyay aad iyo way badiyeen raashin fiican soo gaarsiiyeen raashinkan aad baa loogu baahnaa xisbiga dhamaantii madax sare ilaa iyo inta uu codeyn doontaba way ku mahadsan yihiin insha Allah waan uga mahadnaqaynaa inta liidata ama inta dhibaataysan waxay ka yeesho dadka xanuunsanaya dumarka iyo caruurta maanta wadani uu cadeeyay inuu u gurmanayo inta dhibaataysan inta xanuunsanaysa ummadda quruxdeedana calaamada lagu gartaa waxa weeye inta ugu liidata marka maxay ka yeeshaan waxa qabaalkiisa isaga oo aan kala haynin wad arkaysiin xisbiga wadani waxa uu qabanayo taasoo tala inii qabtana waxaad ka rajaynaysiin inigu baad garanaysiin waa Shucayb Maxamed kaan Shucaybiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama